go'aankii dhagarta iyo ceebta huwana ee khamiistii la soo dhaafay ay qaadatay dawladda dabadhilifka Imaaraadka Carabta ee awoodda siinayay maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda dulligana gelinayay muslimiinta Filistiin ayaa jawaab celin kala duwan laga bixiyay. dawladaha reer galbeedka oo xulufo la ah Yahuudda ayaa badankood soo dhaweeyay qaraarkii Imaaraadku ku aqoonsaday Yahuudda isla markaasna uu cilaaqaad shaxsan kula yeeshay waxa loogu yeeray Israa'iil oo ah maamul gumeysi oo xoog ku haysta dhulka muslimiinta Filistiin iyo muqaddasaadka muslimiintu ay leeyihiin. Imaaraadka Carabta oo ka jiro maamul taariikh soo jireen u leh la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa wejigiisa dhabta afayday kadib markii uu dabayaaqadii isbuucii la soo dhaafay ilaamiyay inuu la saaxiibay Yahuudda oo la samaysan doono iskaashi dhan walba ah. tallaabadan ay qaadeen maamulayaasha Abu Dhabi ayaa ahaa kuwa aan kadis ku ahayn caalamka islaamka oo horay u ogaa sida nidaamkan uu naasnuujiyo acdaada islaamka oo ugu horeeyaan saliibiyiinta Yahuudda iyo Calmaaniyiinta. Imaaraadka ayaa 20 sanadood ee la soo dhaafay ahaa buqcad laga qaniino shucuubta muslimiinta ee dulman, balse arrinta cusub ayaa ah in qaab dulmaasiireed uu iclaamiyay dhagartii uu sanado maleegayay. shacabka Filistiin ayaa jawaab celin ay ka bixiyeen dhawaqa ka soo yeeray acraabta murtadiinta Imaaraadka ku muujiyay sida ay uga xun yihiin in kuwa u nasab sheegtay islaamka ay soo buuxiyaan safka Yahuudda, waxayna ku sifeeyeen qoom la dhalan rogay oo isku rogay cadow xeel dheer. isku soo baxyo ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Gaza, Ramallah iyo Qudus ayay muslimiintu arrinkan si adag uga dhiidhiyeen. hogaamiyaal u hadlay ururada bulshada rayidka Filistiin ayaa shacabka ugu baaqay inaysan marnaba u garab raaricinin khudlaanka uga imaanaya kuwa baadiyoobay ee Yahuudda la soo saftay. رسالة الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يرفع راية الاستسلام. الشعب الفلسطيني مستمر بالمقاومة والكفاح والنضال حتى إسقاط هذه الصفقات المشبوهة. فرينتيدا ku socota shacabka reer Filistiin waa inay shacabka reer Filistiin aysan kor u qaadin calanka isdhiibida. dadka reer Filistiin waxay sii wadi doonaan iska caabinta, halganka iyo kifaaxa ilaa laga tuurayo heshiisyadan dhagarta miiran ah. tani waa gardarada ka dhanka ah shacabka reer Filistiin. tani waa gardarada saddex geesoodka ah ee ka dhanka ah xuquuqdeena iyo muqaddasaadkeena. waxaa soo gardaro ah waxaa hogaaminaya Mareykanka isagoo iskaashi bahwadaag iyo hoosaasin kala dhaxayso andimada Carbeed. fariinta kale ee aan dirayno ayaa ah inaan calanka cad ee isdhiibida aan sare loo qaadin ee aan sii wadi doono loolanka ilaa aan Yahuudda gumaysiga ah ka xoreyno dhulka Filistiin. رسالتنا لن نرفع الراية البيضاء ومستمرين حتى كنس هذا الاحتلال عن الأرض الفلسطينية. durbadiiba qaar badan oo kamid ah khawaanada dawladaha dawaaqiida Carabta iyo kuwa cajamta ah ayaa si diiran u soo dhaweeyay dhawaqii ka soo yeeray dabadhilifyada Imaaraadka Carabta. war saxaafadeed ka soo baxay qasriga boqortooyada ee looga armiyo dawladda yar ee Bahrain ayaa lagu sheegay in si aad ah ula dhacsan yihiin dib u soo celinta xiriirka Yahuudda iyo Imaaraadka ee lagu dhawaaqay. boqor Xamed bin Ciise Al Khalifa oo khadka telefoonka kula xiriiray dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ugu hambaliyay heshiiskii taariikhiga ah ee uu la galay Israa'iil iyo guusha nabadeed ee soo hoyatay. sidaas waxaa lagu qoray wakaaladda wararka u faafisa dawladda Bahrain. arrinta la yaab kale ayaa ah in dawaaqiida Carbeed aysan ka xishoonaynin isugu hambalyeynta ceebtan ayna u arkaan sharaf iyo karaamo, waxaana ku dhawoobay wixii hore ay uga sheegi jireen aqoon-yahanada oo ahaa inay yihiin qowsaaro ay Yahuudda iyo Mareykanka ay samaysteen ayna talada u dhiibteen si ay danahooda uga shaqeeyaan. si kasta oo dhagar iyo khiyaano loogu maleego shacabka reer Filistiin ee caanka ku ah ka dhiidhinta gumaysiga isma dhiibayaan, sida uu mar kale ka dhawaajinayo mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada reer Filistiin oo ka hadlay isku soo baxidii shalay dhacay ee Imaaraadka loogu jawaabayay. احنا رسالتنا في المسيرة انه هذا هو الاحتلال الصهيوني، هذا هو القاتل، هذا هو السالب لارضنا، هذا هو المشرد، هذا هو عدونا الرئيسي. risaalada aan ka dirayno isku soo baxan waxa waaye kani waa gumaysi Yahuudi Sahyuuni ah oo ah dilaa xoogaya dhulkeena. kani waa nidaam barakiciye ah. kani waa cadowgeena ugu weyn ee aan leenahay, balse Imaaraadka Carabta ee xiriirka la caadiyeystay nidaamka Sahyuuniga ah. waxaan leenahay idinka ayaa bogaadinaya gumaysiga sida noo galaya oo aad ku taageeraysaan cilaaqaadkiina shaacsan ee aad iclaamiseen. ilaahay idinma barakeeyo. waxaad sharaf dhac ku tihiin ummaddan. waxaad sharaf dhac ku tihiin
carabinimada waxaad sharaf xumo ku tihiin islaamka annagu waxaan u soo joognay taariikh dheer taariikhduna iyadaa hadasha cadowga ummadda waa sahyuuniyadda embriyaaliyadda iyo andimada carabta idinku ah shuyuukhda khaliijka iyo shuyuukhda khiyaanooyinka waxaad sugteen mowqifkiina xiriirka aad la leedihiin israa'iil waxaadna caddayseen in aad halgod iskula jirtaan sahaayinada shucuubtiina ayaadna kala safateen laakiin shucuubtaas beri way idin eryan doonaan oo waxay idin haleelsiin doonaan qiimaha khiyaanadii aad samayseen sidii ay horay u yidhaahdeen qorayaasha sahyuuniyadda oo ahayd carab wax kasta waan ka qaadnay balse uma harin wax aan caro ka ahayn carada shucuubtiina aad hoojiseen waa kuwo baaqi ah oo idin eryan doona idinkuna ciqaabi doonto ku hoggaamintii dulliga لكننا نقول للإمارات العربية المطبعة مع هذا الاحتلال نقول لها أنتم عار على هذه الأمة وعار على العروبة وعار على الإسلام. la taliyaha Bahrain wuxuu si cad u sheegay in dhamaadka sanadkan ay qaadi doonaan tallaab la mid ah midda ay qaaday Carabta Abu Dhabi ayna la saxiixan doonaan Yahuuda heshiis dhan walba ah wuxuu intaas raaciyay in iyagu aysan cad u arkin waxa loogu yeeray Israa'iil isagoo muujiyay in la gaaray waqtigii nabad lagula noolaan lahaa Yahuuda sida uu hadalka u dhigay ninkan khaa'inka ah Jared Kushner oo ah la taliyaha Trump ee bariga dhexe ayaa isna waraysi uu siiyay telefishinka CNN wuxuu ku sheegay in dawladda Sacuudiga waqti aan dheerayn ay cilaamin doonto caadiyeynta cilaaqaadka kala dhexeeya Yahuuda duufaanta khiyaanada ah ee Yahuuda lagu taageerayo muslimiintana lagu cadaadinayo waa mid istaba taal min Afrika ilaa iyo dhulka jasiiradda Carabta xukuumadda dabariilka Mauritania ee ka jirta waqooyiga qaaradda Afrika oo kamid ah xukuumadaha hoostaga Faransiiska ayaa iyana cilaamisay inay taageersan tahay go'aankii Mohammed bin Zayed uu ku sheegay inuu heshiis la saxiixday Yahuuda sahyuuniyadda وصحافات كسب بحي وزارة arrimaha dibadda iyo qurba joogta Mauritania ayaa lagu yiri Mauritania waxay adkeynaysaa taageerada aan xad ka lahayn ee u hayso dawladda Imaaraadka Carabta waxaan bogaadinaynaa go'aankii geesinimada iyo xigmadda lahaa ee hogaamiyaasha Imaaraadka ay qaateen ayna ku xaqiijiyaan masaalixdooda xukuumadda daalimada Nouakchott oo u muuqata in qudheedu ay qayb ka tahay dawladaha u carboonan xiriir la sameysashada Yahuuda ayaa guul weyn ku tilmaantay in Abu Dhabi ay cilaaqada sameeysato waxa loogu yeero Israa'iil nin lagu magacaabo Anwar Qarqaash oo ah wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa waraysi uu siiyay ku faanay in xiriirka ay la sameysteen Yahuuda uu badbaado u yahay mandiqada oo idil balse haweeney saxafiyad ah oo ku wareysanaysay telefishinka CNN-ka una dhalata Mareykanka ayaa xujadii ka dhamaysay markii ay u soo sardisay in mamarsiyiisu uusan soconaynin mar haddii qorshaha Yahuuda ah in daanta galbeed lagu biiriyo Qudus uusan ahayn mid baaqanaya isla markaasna go'aanka kama dambaysta ah uusan qaadan karin Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Yahuuda to really create confidence with a major Arab economy a country that doesn't really have borders with Israel. Israa'iil runtii waxay haysataa fursad ay hadda ku abuuri karto aaminaad dhab ah oo leh dhaqaalo ballaaran oo Carab ah xataa haddii uusan jirin dal xuduud la leh marka waxaan runtii kala saari doonaa siyaasadaha aan u caddayn dhammaan wadamada bariga dhexe iyo hadallada aan mar walba maqalno iyo waajibaadka dawladahaas ka saaran caadiyeynta cilaaqaadka waxaan kuu sheegayaa in xiriiro aan la sameynay caasimado badan oo Carab ah iyo caasimado badan oo reer galbeed ah ay qadiyadda la wareegida daanta galbeed ay runtii u ahayd bambaano la waqtiyay oo mar walba qarxi karta dhamaantoodna ay ka wada walaacsanaayeen our contacts with many Arab capitals many European capitals the issue of annexation has actually been like a time bomb that everybody's been worried goor dambe oo maanta ah ay Yahuuda iyo Imaaraadka Carabta iclaamiyeen inay bilaabeen xiriirkii ugu horeeyay isla markaasna ay si rasmi ah labada wasiir arrimo dibadeed khadka telefoonka ugu wada hadleen waxayna sheegeen in dhawaan ay isdhaafsan doonaan safaarado iyo safiiro ayna iska kaashan doonaan la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada oo ah la dagaalanka muslimiinta Dr. Abdullah Al-Nafisi oo ah aqoonyahan caan ka ah mandiqada Khaliijka ayaa 18 sanadood ka hor saadaaliyay in dawladaha Carabeed ay baalka ugu jiraan Yahuuda ayna maalin uun cilaamin doonaan inay xiriir la yeeshaan Yahuuda isagoo carabaabay in Yahuudu si bilaash ah ay ku heli doonto shidaalka dhaxeegaaga mandiqada Khaliijka نعم هناك 4 أهداف للصهاينة في الخليج. ما هي هذه الأهداف؟ أول هدف هو النفط الخليجي. النفط الخليجي قريب من الكيان الصهيوني ورخيص عندما يتم التطبيع
سيسهل عليها الحصول على نفط الخليج بأرخص الأسعار في النظام الإقليمي الخليجي. كيف؟ وضح لنا. يعني أن عندما يتواجد الصهاينة في الخليج ويكون لهم صلات رسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ويكون لهم تواجد سياسي ومعنوي وأدبي. marka la eego jawaab celinada dawaaqida carbeed ee ka bixiyeen qadiyadan waxaa muuqanaysa inuu ahaa shirqool laga soo wada shaqeeyay oo ku biyo shubanaya xaqiijinta damcii Trump ee ahaa in qadiyada Filistiin la baabi'iyo. waxa ugu horeeyana ay tahay in marka hore Yahuuda la siiyo sharciyad kadibna dhulboobka Filistiin la dhameystiro. waxa isna sidoo kale arrintan hore uga shanqariyay Ustaad Nashad Al-Aqdash oo ah bara saxaafadeed oo ku sugan magaalada Ramallah ee dhulka Filistiin. 8 قرارات صعبة اتخذها ترامب هي صفقة القرن. باقي من صفقة القرن آخر جزء. قرارات كأدكاء أوقاتي ترامب وحا كمدها هشيسكي لو بحيي صفقة القرن. هشيسكاس أو وحا حتى كهري أيهين كليا انت قدام بيسي أو إن لا صحيحة حبت جوجين الله نحدقيو حماس أو جوج تجيد غزة إيو إسرائيل. هو تشكيل أو توقيع هدنة بين حماس في غزة وبين إسرائيل، ويسمى هذا الكيان ما تريد حماس أن تسميه، والضفة الغربية لا حديث عنها. maamulka Gaza wuxuu qaadan karaa hadba magaca ay doonto Xamaas dhinaca daanta galbeed. arrimahan ma qusayso waxa la sheegayay in qaybo kamid ah lagu darayo Urdun. أجزاء يقال أنه كونفدرالية مع الأردن، ولكن لا يوجد سيادة أو دولة في الضفة الغربية مطلقا، لأن الدكتور ينسى أنها بالنسبة لليهود يهودا وسامرة، غزة لا تعنيهم شيء. لكن دانت قلبي وح معامل يوم مدح بناني قاره كما جري دونه. أرنت ودكتوركو يلوسينها أياه إن يهود أي دونيان كليا دولك أي يقانان يهود أي سامرة ودولك دانت قلبي غزة ما بدنينيان. وبالتالي صفقة القرن انتهت. الضغط الشديد على غزة وصلت إلى حد المجاعة اليوم، لأنه يراد لهذه الحماس أن توقع هذه الهدنة فتصبح إسرائيل دوليا غير محتلة. marka waxaan dhihi karnaa safqatul qarni waa soo afjarmatay. hadda waxaad aragtaa cadaadiska xoogga ee lagu hayo Gaza oo xitaa laga soo sheegayo in macluul ay ka dilaacday. waxaa soo culaysa waxaa looga golleeyahay in Xamaas lagu cadaadiyo saxiixa heshiiskan oo kadib Israa'iil ay sidaa ku noqoto dawlad aan gumaysi ahayn. marka loo eego xeerarka dawliga ah waxay noqonaysaa dawlad caadi ah, waayo Gaza xabad joojin ayaa ka jiraysa. daanta galbeedna heshiis nabadeed. intaas kadib maamulada carabta waxay u heelanaan doonaan bal inay fursad u helaan sidii ay xiriir caadi ah ula samaysan lahaayeen Israa'iil. تصبح دولة طبيعية. هناك هدنة في غزة وهناك معاهدة سلام في الضفة، والأنظمة العربية صافعة الدور تستنى الإذن لكي تطبع. شيخ أبو يحيى الليبي oo kamid ahaa culimada jihaadka ee sida aadka uga hadli jiray qadiyada Filistiin ayaa ummadda muslimka u bidhaamiyay in Yahuuda iyo Mareykanka aysan waxba isdhaamin oo ay yihiin dameer iyo labadiisa dhagood. waxaana muuqata in dawaaqida carabta ay haysata caalamka islaamka iyana sidaas ay yihiin oo Yahuuda aysan waxba dhaamin. كما يقال فإن من أصعب المعضلات توضيح الواضحات. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس فلا أحسب أننا بحاجة إلى إثبات أن دويلة إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من أمريكا ومكونة من مكوناتها بل ولاية من ولاياتها. waxaa hore loo yiri waa arrin dib badan cadaynta wax aan cadayn u baahnayn. haddaba annagoo halkaas ka duulayna waxay ila tahay inaan cadayno in dawladda yar ee Israa'iil lagu magacaabo ay tahay qayb kamid ah Mareykanka. waa xubin iyada kamid ah ama gobolada Mareykanka kamid ah. arrintaas waxaa cadeeyay madaxdii kala dambeysay ee Mareykanka soo martay, kuwaas oo ku sheegay shirarkooda jaraa'id, warbixinadooda iyo xusuusta qoraaladooda intaba. mana jiro mid kamid ah madaxweynayaashaas ilaa wuxuu ballan iyo wacd ku maray inuu sii wadi doono taageerada Israa'iil iyo in weligiis uu ammaankeeda ilaalin doono. haddaba Israa'iil waa Mareykanka, Mareykankuna waa Israa'iil. isku dayga ah in la kala sooco jariimooyinka ay sida wada jirka ah u geysanayaan waa arrin dhalanteed ah. فأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، ومحاولة التفريق بينهما في اشتراكهما في الجريمة والعقاب هو ضرب من العبث. si walba oo dawaaqida carabta ah ay Yahuuda ula shaqeeyaan marnaba shacabka Filistiin iyo ummadda islaamka ah iskuma dhiibi doonaan Yahuuda iyo xulufadeeda.
shakina kuma jiro in mar uun cadowga laga xurayn doono baytulmaqdis qibladii koowaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyey nabi moxamed sallallahu calayhi wasalama shacabka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa ra'yigooda ka dhiibtay go'aanka imaaraadka carabta waxayna sheegeen in cadaawadda imaaraadku mar horeba ay ahayd mid gaamurtay oo la wada arkayey runtii wax la yaab leh ma aha aniga aragtidayda wax la yaab leh ma aha waxaanay ula yaab u lahayn meeshan nimankan khuwaanada ah khaliijka madaxda u ah ninkii aragti dheeraana bir hore u arkay waxa ay soo wataan kuwa imika fadhiya iyo kuwii ka horreeyeyba ninkii aragtida gaabnaa ee dadka aragtida dheer ka magaranaysaa ka sokeeyeyna dee wuxuu joogaa xilli aan waxba magaranaysaa waxbaba aan la kala qarsanayn wax walba ay maanta ay badheer tahay baa muuqata nimankani inay gaalada dabadhiilfayaal u yihiin oo ay khiyaano soo wataan oo ay wadamada muslimiinta ay doonayaan inay gaalo u gacan geliyaan wax iska cad bahayd runtii tartan dhexdooda ah oo magaranaysaa ay usoo kala tartamayaan ayuunbay magaranaysaa laislahayaa soo horeynaya waxaan filayaa arrinkaa maanta ah ay sameeyeen imaaraadku ay sameeyeen mid la sugayay buu ahaa beelkeeda ee dadka muslimiinta imtixaan bay ku jiraan imtixaankaana insha allahu tacaala way ka gudbi doonaan sidii ay hore uga gudbi jireen caalam islaam markii koowaad ee magaranaysa lasoo weeraray ee dhulkiisa gacanta lagu dhigay ma aha waxa weeye halganka iyo duulimaadku wuu socon jiray dadka muslimiinta ahina way kasoo magaranaysa kasoo bixi jireen insha allahu kana waa laga baxaya waxaan anigu isleeyahay nimankan imika imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo nimankan meesha fadhiya anigu waxaan isleeyahay nimankan asal yuhuudi baa ku jira lianna waxa weeye yani bareerka caynkana iyo safashada caynkana gaalada lala safan yahay ee loo kala dheeraynayo gaalada ee yuhuudii magaranaysa caalam islaam cadowga u ahayd ee qaadatay dhulalkii islaam muslimiinta qaadatay khaasatan falastiin sida loogu soo kala dheeraynaya magaranaysaa saaxiib looga dhiganayo waxaad moodaa dee inay magaranaysaa inay yuhuud asla yihiin baad moodaa arrintaana shaki baa runtii igaga jira oo nimankani inay yuhuud laysu qariyey ay yihiin oo la doonayo inay dadka muslimiinta dhulkooda oo dhan iskada falastiin ee muslimiinta bariga dhexe ku taal oo dhan inay u gacan geliyaan niman doonaya bay u egyihiin waad aragtaan maanta waxaa falastiin maanta xaaladda ay ku jirto ilahay baa maqan subxaana watacaala maxaa diidaya dhulbalaarsigaas inuu sii dheeraado oo qoloba maalin ay kusoo birto berri sacuudigu yimaado baxrayn berri u timaado oo dabeedna qolo waliba tiraha noo kaalay oo dabeedna yuhuuddu taariikhdeeda wax xusuusan tahay inay magaranaysaa ay yidhaahdaan dhulkayagii baanu soo ceshanayna dhulkii laga soo kiciyey madiine iyo hareeraheeda iyo khaybar oo qalcadahoodii iyo maxaan sheegaa beerahoodii iyo waxoodii khariidadii weli ay ku taallo inay yidhahdaan waan soo ceshanayna oo dabeedna ay ilaahay baqadare ay ixtiraal geliyaan masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii xaaladdu maanta sida kusii socoto wax diidayaan ma jiraan dadka muslimiintana waxaa loo baahan yahay in maxaan sheegaa caqligoodu shaqeeyo oo ay fadhiga ka kacaan ayna difaacaan muqadisaadka dadka muslimiinta ah diintooda iyo magaranaysa dhulkoodaba ay difaacaan insha allahu tacaala ilahayna waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala gaalada is soo bahaysatay makrigooda ilaahay subxaana wa tacaala inuu iyaga ku celiyo dadka muslimiintaana ilaahay subxana wa taala cisigooda iyo sharaftooda ilahay usoo celiyo cadowgoodana tuso intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sanadkii hore ayay ahayd markii caalamku ula yaabay dowladda imaaraadka kadib markii ay iska hareer dhistay kiniisad iyo masjid ayna dadka khiyaar u siisay in halkii ay rabaan ay geli karaan shir loogu magacdaray walaalaynta insaaniyadda ayay dowladda awooduhu ay qabanqaabisay iyadoo kulmisay baadiriyaal iyo wadaaddaxumayaal ay ku sheegayso in muslimiinta ay matelaan فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية